kaliya aniga waxaan ku darayaa xildhibaanadii maanta gaaraya 60ka oo ka qayliya madaxweynahan ka mid ahayn waa u jeedeen saxaafadda haddii aydan 60 iyo ka badan dadkii ahaa sababta keentay in madaxweynaha khiyaaliga uu ka hadlayo aan baarlamaanka uga dhex istaagtana waxay ahayd madaxweynuhu intii dhibaato taagnayd oo 8 maxaa la dhahaa dictator oo la dilay uusan ka hadlin mayd maxaa ugu dameeyay baa la dhahaa kala siisada kii xataa kama hadlin wili caada kama tacsiyadayn wuxuu yiri sanadkii hadda lagu jiro 27 qof baa dhintay waana ogtiin maalin kasta maydka yaala dhalinyarada iyo qof kasta everyday waxa dhacaya maanta waxa ugu dambeeyay oo xalay MSS-ka naloo soo diray oo Villa Hargeysa inta la eeg liir hal yimaado waxay ahayd iskool bulisi oo laga baqay hoobiyayaal wadanka nabadiisa horta halkaas ay maraysaa anigu hal baaq baan jeedinayaa marka baaq uma jeedinayo xildhibaanada baaq uma jeedinayo gobolada baaq uma jeedinayo waxaan u jeedinayaa reer Muqdisho 4 milyan baa sheegataan waxa ogtihiin Minneapolis waxa lagu dilay hal nin oo madow ah 8 bari baa waxa soconaya mudaharaad 8 bari baa waxa soconaya mudaharaad sababta intii 8 dictator la dilay aan reer Muqdisho uga hadlin dhaqameedyada uga hadlin dhalinyarada uga hadlin hooyooyinkii uga hadlin horta idinka ayaaba tihiinba masuul ka ah in dadka saa loo baabi'iyo annagii halayna waxa annaga naloo maqli la yahay baawarka waxa haysta waa reer Muqdisho in nin meel kale ka yimaado gobol baan ka imaaday nin kasta percentage buu ka yahay yaa Muqdisho matala su'aasha ani arra waxay tahay Muqdisho horta yaa matala aaw xildhibaanadoodii aaw sanataradoodii aniga waxa leeyahay haday looma ooyaan tahayna waa in gobolada loo cidiro waa in shanta gobol dad loo diro oo Muqdisho xoreeya antaasaan taagna farmaajo lidii buu ku yahay maanta wuxuu yiri anaa ku dhashay farmaajo haduu ku dhashay ama uu naxdin ka hayso intuu ciidankii ka qaado Jubbaland kuma weerareen ciidamadii ilaalinayay askartayadii annagana ilaalinaysa Jubbaland ka dagaalamaysa marka aniga waxaan leeyahay reer Muqdisho gabar haday tahay wiil haday tahay dawlad meeshaan waxa jooga gudoonka iyo xildhibaanadu masuul hadayna ka noqon karin Muqdisho war hal nin baa waxa lagu dilay maxaa la dhahaa magaalada Minneapolis 8 bari baa whole America United States waxa ka dhacaya mudaharaad way alla aaminsantihiin aniga baaq baa maanta diraya baaqaygaas wuxuu ku socdaa reer Muqdisho cid kale aan ka hadlaayo male farmaajo maanta wuxuu awoodi waay inuu dhaho maxaa la dhahaa dictatorada dhinta Allah u naxariisto farmaajo afkiisa maanta wuxuu soo mari waay war aniga waa fashilmay wadankan haleegala wareeg ani ma qaba 3 bilood in la sugo ani ma qaba in 2 bilood la sugo ani ma qaba inuu farmaajo uu istaahilo in la sugo sababtoo waa u jeedaan war iskool bulisiya niban yahay ku qabta meesha aan joogi jirro iskool bulisiya ahay maanta waxaan joognaa Villa Hargeysa ilaahay baa idinku dhaariyo magaalada ma mari karno meel kasta waa xiran tahay dadweynihii waa baaba'een ani waxaan leeyahay baaq baan dirayaa baaqa aan dirayaana waxa weeye reer Muqdisho kaca isna xoreeya farmaajo waa fashilmay codka annaga shalay siinay waa u jeeda baarlamaanka waa qayliyeen codka yagina laga bilaabo maanta waa kala noqon warsow kalaba aynu noqon annaga waa kala noqonay madaxweynena nooma aha madaxweynena ma istaahilo ani intaasaan ku baaqaya no anymore president inuu ka yahay wadanka waa fashilmay intaasaan leeyahay